ama uu si sharci isu dhaga ayaa sameeyay arrin goluhu raali ka yeeyeen maaha arrin aan ogolayna maaha waxaanu leenahay taas waxay dhaawacaysaa wada shaqayntii labada gole waxaanay ahayd xeerkan sidiisaba xeer xasaasiya waxay ahayd in golaha 82 xubnood la hor keeno oo ay rayigooda saliimka iska weydiiyaan iyagoo eegaya danta qaranka marka shirgudoonka iyagu waxa weeye xildhibaano anagu aanu dooranay oo ka dhignay gudoomiyaal ka dhignay weeyaan xaq uma laha waxaanan ogeyn inay gudbiyaan oo ay tan kala sameeyaan arintaas marka waxa weeyaan hadaan nahay xildhibaanada golaha guurtida waxaanu iskala noqon doonaa talaan iskala noqonaynaa horta anagu waxa ma ogeyn banihiin dalalka xoogga iyo xabadda lagu kala badin jiray waxa iyadoo waxba la weydiin xildhibaanada waxbana lama weydiin kowdhi lama weydiin ayuba sabaanta golo kowdhi imikaanu aragnay imika waxaan u sheegaynaa inaan arinta la qabin inaan anagu kula jirin inaan anagu ogeyn way golahaasna maamul buu leeyahay golahana maamul buu leeyahay kowdhi inna soo hordhiga way sharci buu kaga soo gudbay hadduu sharci kaga soo gudbayna sharci buu kaga soo gudbay haddii aanu sharcigii la isla aqoonsanayn taasma noqos way golahaas cod buu sigeliyay codkii buu ku soo baxay weyn wada ogeyn arrinta maanta taaganna waxa weeyaan waxa weeyaan imika haddii aan baalkii indhaha laga ridayo waa qof walba uu fasaxay baa filaysta imika arrimo u socdaan iyo waa tii koobaad ayadaan golii inaan la ogeysiin oo shaqaale la ogeysiin horta waa tii koobaad dalka ka dhacdo waana dembi weyn sida ay u muuqanayso oo ay galeen golaha guurtidu shirgudoonku ay galeen arrinkii wada tashiga ahaa ee laga wada tashan jiray ayadaan laga wada tashan ayaa sidaa la yeelay waa dumis qaranka la duminayo oo dadka la isku dilayo oo maxaanku idhaahdaa halkii hadduu xitaa qalad yahay laga wada hadli lahaa ee la isla arki lahaa ayaa mar keliya ayadaan laga wada hadlin oo golihii ka doodin halkii laga celiyey marka waxaanu aragnaa wax aan dalka caado u ahayn oo caado cusuba oo isku dil ah oo aan wanaag faraynin dadka ee xumaan farayo xeerkaa isaga ah dalka oo dhammi wuu ka soo hadlayay guurtuduu la soo hadlayay dadku waa dad nabad doonaya waa dad wada hadal iyo maxaanku idhaa waxisujiid ku soo shaqaynayay 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay nimankaas maanta shirgudoonkii dalka waxay ka galeen dembi culus bay ka galeen ka galo ahaana waanu iska arkaynaa dalkana waxaanu leenahay nimankaasi waxay sameeyeen waa wax aan dadka raali gelinaynin bal hadaday goluuna kulama socdo wax dalka raali gelinayana maaha waa wax xumeeyayna waa arrin xumayna waxaanu leenahay dadkow arrinka caynkaas ee nimankaasi faleen ayagay u gaartay kadib goonaada oo yaan xumaan loo qaadin dadka iyo dalku